dhalinyaro waxaan idin sheegaa DNA-ga ama hidisidaha bini'aadanka inuu ka koobmo 46 chromosomes inuu ka koobmo 46 chromosome haddaba 46 chromosome waxay kala baxaan 23 iyo 23 oo hooyada iyo aabaha ah ayay u kala baxaan waxaa jira marka hal chromosome oo loo yaqaano xarafka ya ama i-ga qeeg ama y loo yaqaano halka chromosome oo aabaha mar walba u dhaafa wiilka u dhaafa halka gabadha ma hayso chromosomka ya la yiraahdo ma hayso waa kii dhaxalka lagu garanayay haddaba chromosomeskaasi marka soo tagno waxaa jira marka chromosome V32 chromosomeska la yiraahdo oo ah habla group oo annaga aan soo galayno Soomaalida ay soo galayso habla groupka marka haddaba maxaa annaga sidee baan ku nahay faraaciin ku nahay 77.6 masaarida faraacinadii hore DNA-goodu sidaa ayuu ahaa DNA-gana waxaa laga helaa keliya Soomaalida ayaa laga helaa oo 77.6 haddaba fircoon sidaasaan horta aan asal u nahay in annaga aan nahay faraacintii oo halkaa tegey waayo tan kale inaynu nahay asalka inaynu nahay marka waxaa caddaynaysaa inaynu asalka nahay waxaa caddaynaysaa dadyowga adduunka marka la baaray DNA-ga ay leeyihiin marka la baaray waxaa la ogaaday inay laba iskugu imaanayaan laba ay iskugu imaanayaan deedna laba markay iskugu yimaadaan misna haddana waxay kusoo biyo shubanayaan oo DNA-gooda soo gelaya bariga Afrika gaalo waxay tiraahdaa Tanzania maahe waa Soomaaliya DNA-yada marka la baaray waxay soo galaan all gebigooda waxay soo galaan laba si u socdaan adduunka laba isku lahaanayaan laba isku mid noqonayaan waxay soo wada galayaan kulligooda bariga Afrika ay ku soo wada dhamaanayaan waa dadyowga adduunka oo dhan ama Aasiya ha joogo ama Afrika ha joogo ama Australia ha joogo ama America ha joogo ama Yurub ha joogo meel kasta uu joogo bini'aadan waxay ku soo dhamaanayaan DNA-goodii inuu originku u yahay bariga Afrika waaye haddaba bacd asalkii sababtaas waa u tahay oo cid ka asalsan ma jirto lafahan ay sheegayaan oo Tanzania laga helay ay leeyihiin oo lafa qadiin ah way leeyihiin bariga Afrika waxa ka qadiinsan kuwa laga helay meesha u dhow Bon waa Boorama agteeda meel ah laga helay kuwaas ayaa ka qadiinsan lafa oo ka qadiinsan wili dunida kama soo bixin ilaa waxa la sheegay 6,000 oo sanadood inay jireen ayaa la sheegay qolooyinka archaeologists ahaa ee bariga joogay sida ay u cadeeyeen qolooyinka la ka